السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركان يرى وحمر والبقان جعلا وحيتا إنا النقض مت دتك أنفعه مت دتك هورتودا استاجه كدبنا جيدية هذا أما قطبت سامين له مت هذا الكيس اللي حيسايو مت دتك قنعين كرا فكرة دي سنة دتك كدا دعسين كرا سي كلسون له markaas kadib waxaan qaatay waxay tahay koosooyin kala duwan buugaag badan waan aqriyay hadda alxamdulillah waxaan u safraa waxay tahay wadamo badan boqolaal qodbana waan jeediyay kumanaan qofna waan la hadlaa ya salaam dad badan ayaa waxay weydiiyeen waxay tahay sideen bulshada u anfici karaa sidee fikradeeda ugu dhaadhacsiin karaa mid ganacsi ama mid dhiirigelin ah iyo wixii la mid ah si erayadaada uu kugu rumowo waxaan ku diyaariyay waxay tahay koorso ka caawin doona bilow ilaa dhamaad koorsadaas waxaa ku jira waxay tahay 5 arrimood midka ugu horeeya waxay tahay muuqaalo video ah oo 10 ah ku sharaxi doona wax walba aad u baahan tahay midka labaad buug aan qoray ku saabsan arintaas buugaas oo aan si bilaash ah adiga ku siin doono midka saddexaad waxaan si shakhsi ah adiga ku tawbari doona waxay tahay sida hadafkaas aad u gaari lahayd adiga ayaa wada hadli doona caqabad walbana arintaas kugu timaada waan ka caawin doona midka afaraad waxay tahay waxaad fursad u heli doontaa waxay tahay in muuqaalkaaga iyo fariintaada ay gaarto malaayiin qof social mediaha facebookgayga instagramka iyo youtubekayga ayaan ku soo dhigi doona midka shanaad waxay tahay waxaad heli doontaa waxay tahay shahaado marka aad ka jawaabtid su'aalaha imtixaanka kadib hadaba aragtidaada waa ii farxad fursadaas ka faa'iideysan insha Allah ta'ala waxaad iska qori kartaa waxay tahay website-ka shaashada idinkaga muuqda oo ah abubakr.m.com iyo sidoo kale xidigacademy.com waad awoodaa waad samayn kartaa balantayni waa tawbarkaas insha Allah ta'ala aan qaatay koorsada kadib waxaan noqday qof diyaarin kara khudbadiisa gudbin karana fikradihiisa cabsi la'aan qof waxaan ahay oo ka cabsanay intuu dad hor istaaga laakiin hadda waxaan ahay qof isku kalsoon markaan hadal jeedinayo marka aan qaatay koorsadan kadib mahadsanid Abubakar